waxaan dhexda kaga jirnay waa barnaamijkii qabyaaladiid halka aad kala socotaana waxa weeyaan radio city soo gaad oo kala socotaan baraha bulshada facebooka iyo channelka youtube-ka waxay nii daadinayna waa anigoo Maalika Jibriira waxa aan gabagabadii maxay ahayd barnaamijkii qabyaaladiid ayaan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Zainab Umar oon ilaahdo Zainabay kelmadaadii u dambeysay maxaad ku soo gabagabayn lahayd maxaad soo oran lahayd inaad ku soo dhawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta dhammaantiin waa in salaamaya hablaha walaalaha iyo sharafta leh ee iskugu yimid barnaamijkan inay hogaamiyaan waanad mahadsantihiin sida maad aragtay quruxda badan ee u qaala dhigteen waxaan walaalahayo anigu aan ku soo gabagabayn lahaa horta maad aragtay odaygii aan ka tafiirnay Ciise ilaahay jannat al-firdaws a'laha ka waraabiyo iyo gudwixii iyo intii ka dambeysay ubadkiisa ahayd sharaf iyo maamuus Soomaali Maxamed cidna garab joogtay aanan jirin bay nooga tageen xeer qurux badan bay nooga tageen dul weyn oo ballaadan kaga soo qabo xiis iyo maydh ilaa maad aragtay dhagago diridhabe maxaa la yiraahdaa magaaladii la oranayay Naanzire ilaa herar دون محل يديمد دون يديمد إلا حيفتا جيبوتي دون يدينها دون يديمد إلا حيفتا جيبوتي إلا ما دركتي أن لوك هيا يسيلع قروح ذا أنت على دوكا ساء بلارن وإلهي ساء وينيد قياس imagine دوكا أنت عليك أيو إلهي نو أي دكيني ما دركتي نوغا تجين دحل وناكسن بين نوغا تجين ubad dhaxal looga tago dhaxalka ugu quruxda badan bay nooga tageen xeer bay nooga tageen Soomaali qabiil kasta midib isku qaatay oo reer buu isku dilay waxa ilaa maantada uu laba reerood oo Ciise laba nin oo Ciise isdilaaway jirta laakiin laba reerood oo Ciise midib isku qaatay waxa Ilaahayna uu inaga badbaadiyay karaamada iyo cizigaana Rabbi bayna siiyay Soomaali waxba kama dheerina waxa Ilaahayna siiyay dad wanaagsan oo aqoon leh aqli leh aqoon aanan lacagna lagu gadan ay lahaayeen waayo cilmiga waa la gataa oo iskuul baa tagi oo buug baa disan oo jaamacad baa tagi laakiin wisdomka aqliga rabbiga raxmaanka azza wa jalla bixiya aqliga inta leeg ragala ayuu Ilaahayna siiyay dhaxalka wanaagsan ee culus oo Ilaahayna siiyay suldaan ma lihin reer kasta suldaan meel lama soo fariistaan ogaas qurahaatan leena dul ma kala lihin daaqsi ma kala lihin xeer ma kala lihin marti iskuma noqonno nin kastoo Ciise ah iyo gabar kastoo Ciise gabadha Ciise iyo wiilka Ciise wax ku qasbantayna gurigeega ku qowdiso bal xeerka eeg dhaqan wanaagsan oo islaamka 80% laga soo dhaxlay ay Ilaahay ina siiyay sooriyeyntii nabiyullah Ibrahim baan leenahay oo dadka ugu sooriyeyn fiican Soomaali Maxamed ayaan nahay marka sharafta iyo ciziga iyo karaamada Ilaahay bayna siiyay isagana xamdiga keligii isaga iska leh marka waxaan oran lahaa walaalahayga Soomaaliyeed especially Ciise ee maanta maad aragtay iyo karaamada ay ciziga Ilaahay siiyay baraha bulshada xaka iyo ku noqon lahaayeen example ay Soomaali sida ay markoogii horeba ugu xeer fiicnaayeen ugu dhaqan wanaagsaneen maantana ay dad loogu daydo bulsho loogu daydo ay noqon lahaayeen inaan inagu daad qaaday xubbo iska noqon oo dhaqankeena intaan meel soo dhignay daad fool xuna dhex galno waa laga fiican yahay marka waxaan oran lahaa walaalahay shaqa inoo taala dadkeeni baa baahan adduunku isbedelay maanta inaan jawigan cusub adduunyadu maanta ay gashay inaan ka qayb galno oo maad aragtay dadkeena wax u qabano oo ummadeena maanta maad aragtay saddexda gooboodba triyonka kaadan ku dhibaataysan inaan maad aragtay kow horta tawxiidka qabsano oo Ilaahay ku wada noqono oo ummadeena wax u qabano ayaa ka khayr badan inta maad aragtay ay aan waxba waxa Soomaalidu tiraah erixun nabadna u fogeeya colaadna waxba kama taro hadalka xun walaalka qalbigiisa unba kaaga dhimanaya waxba kuma soo kordhinayo laakiin hadalka wanaagsani walaalka uu ku soo dhaweeya xumaantana uu maydha walaalaha ayuu ku bedela khayrka ku bedela oo dadkiina wax ugu qabta dadkeena wax qabado Ciise inooga baahan yahay rag iyo dumarba inaan gacanteena furno qalbigeena furno waxa xun iska dhamaanaya walaashay luul waxay ka sheekeynaysaa dibtii Soomaaliya ka dhacday khayro weyn bay wallahi lahayd taasi ha Soomaaliya
oo weliba iyada si gaar u taabatay si gaar u taabatay Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka baxay ilaahay jannada ka waraabiyay 91kii buu ka baxay 90kii buu ka baxay 91kii uu geeriyooday miyahayd miya I think inuu 91kii geeriyooday waxba kama sii maqnayn samir hadday ku darsan lahaayeen walaalahay maxaa la yiraahdaa maanta dhibta dawlad xumo hal ugu yaraa dawlad la'aan horta ma fiicna si kasta u xun tahay maanta waxaan leenahay lacag baan leenahay maalin dhaweyd gabar Soomaaliyeed oo nurse ayaa ka sheekeynaysa maad aragtay dhibta haysata Soomaalida maanta inay lacag ay ku leeyihiin ayna lahayn oo haddii dollarku maad aragtay dollarkiina uu kacay dhulkiina dollar dadkooga lagu siinay lacag Soomaaliyeedna ayna jirin dib intaas ugu yar maanta inagu France Djibouti wali aan haysanaa dawlad xumo ilaahay waxa inooga dambeyn doonta dawlad wanaag fa inna ma'al usra yusra ilaahay baa yiri han samirno walaalahayo han samirno samirkana waxa laga helaa ilaahay agtiisa tasbiixdan badsano ilaahay bay naga kaxaynaya kuwan daalimeynta ah ilaahay bay naga kaxayn isaga raxmaan oo raxiime laakiin ina ilaahay inagu soo noqono oo isku xadgudbin weeyaan anu walaalahayo intaasan kaga tagi lahaa dadkeenu way inoo baahan yihiin ayda ficil wanaagsan hal ugu bedelo ficil bay dadkeenu inooga baahan yihiin ay waxba ma soo kordhinayso وانا mahadsantihiin maalikay barnaamijkeenan ma daragtay caawa aad noo siiseen opportunity aan dadkayga walaalahay wax ku gaarsiino Soomaali Maxamedna waxaan leenahay ilaahay dibta inaga dhax qaado dhamaantiin bogeen ilaahay burcadaha isku mariyo Soomaali waxaan ka hadlaynaa qabiile anu waxa ii muuqata dhul Soomaaliyeed oo dhan in Ethiopia rabto inay gacanta gashato haddaan ka weynaan weyna qoqobkan iyo maalada tafaraaraqan dad 80 milyan xakan jooga oo bilaabad ah walaalahayo aqligu ha koro khayr badan ayaan ma daragtay in rajaynaya jamiican waad mahadsantahay Sheynab Umar aad baad u mahadsantahay hadal murti iyo maxay ahayd wax sheegana waad ka dhawaadisay waana ku mahadsantahay waana sida aad sheegtay maxay ahayd ciise saddex uu gadan yahay abayaasheen baa maxay ahayd dhaxal aynu uga helay inaynu ku far adeegno oo aynu maxay ahayd dhaxalkii aynan qasaarin oonan ceel ku ridin ayaa laynooga baahan yahay waxa kale oo maxaa jirta waxaa layidhi meel hoo u baahan hadal waxba kama karo dadkeena qurbaha jooga weliba ciisaha qurbaha jooga waxaan anigu aan kugu darsanayaa Sheynabay ina ay sidan si dhaanta oo ay dadkooda wax ugu qabanayaan oo ay maxay isku garab taagayaan ka dhibaataysan ka dagaal ku socdo ka dhibaato kala haysato ay isku garab taagayaan waa inay la yimaadaan oo sidan iska bedelaan baan aniguna maxay duwaabada ku daraya waxaan hadda maxay ahayd barnaamijkan qabyaaladid waxa aan ku soo dhaweynayaa Sucaad Xasan soo dhaweynadeer adiguna barnaamijka hadda waa gabagabo maxaad ku soo gunaanadi lahayd maxaad ku darsan lahayd ku soo dhaw Sucaad waan dhawahay waanad mahadsantahay Maalik Umar aad waad mahadsantahay kulli walaashay Zeynab way dhamaysay hadal wardi hadii la maqlay hadal way dhamaysay taariikhna way dhamaysay anu yar baan maartay ku soo gabagabeynaya oo ku darsanayaa inta yar waxa weeyaan war isoo shalay markii maxaa hay'adda Ethiopia ciise lagu dul fadhiyay oo ma aragtay la guumaysigii midooba oo guumaysanay Cabdiile waa kuwii dhinac ka wada maray ee dulmidiid wada ahaa ciise ha yaraada ha badnaadee ka u yar ilaa ka u weyn uu iska diidanaa dulumka uu meel wada maray tii shalay sidaa ahayd maxaa qabyaalad keenay bal dib ma isku xasuusaysiin oo ma tiraadin shalay waa ninkii saas ugu duubna ee ummadan oo la haystay oo nooc walba leh ciise ahayno nooc walba leh la haystay waa idinkiis ka riday ee guusha qaaday intii aad oran lahaydeen horow mara oo horow sii socdo oo maanta waa idinka halkaas gaarsiisanay bal dadkeenan kala daadsan meelayo badan oo waxa jiraan loo baahan yahay ciisuhu maartay inuu u soo xiraysto oo xiraayo waxa kamid ah Soomaaliya dadkeenu ku kala daadsan yihiin
waxaa ka mid ah xeebta Djibouti, waxaa ka mid ah Ethiopia oo meel walba weli anagoon tii dhamaystirin ayaan anagii dib iskugu soo noqonay. taas waa taan ka yaabanay weli hadda maartay calool xumo igu beertay waa taas gabdho walaalahay ah oo weliba qaarkood shalay dadkii dulmidiidka ahaa ka mid ahaa oo maartay dhexda xidhay meel kasta miidiyaha ka qaylinayay ciise oo mid wada noqda lahaye oo wada qaylinayay maanta inay dib iskugu soo noqdaan iskala baandeeyaan sidii turubkii aad baan uga xumay wallahi aad baan uga xumay dad wax ugu xeer uu ciise maahina cid kale ay lahayn baa jirta dawladaha horumaray xeerashay maanta ay ku camal falayaan oo xeerasha ay dhigteen Yurub iyo America iyo meel walba dawladahan horumaray xeerasha ay maanta haystaan hore baan u haysanay aabaheen ciise Allah u naxariisto ka waraabshay ayaa noo dhigay dad taariikh la nahay buugaga dib hadii lagu noqdo taariikhdeena ku jirta ciise madoobe yaan wadahayn taariikhda ciise madoobe waa taariikhdaas yaan wada lahayn maantana maxaa keenay kala ququbka maxaa keenay inaan iraahdo adiga mamaasana adiga urweyna adiga maxay hayday fur laba adiga ma dartay walaaldoona adiga horoona ada Sacad Muuse ala ceelaayihii oo dhan 6 aqal ayaa maanta si kala baandeynaysa waxa isla kala baandeynaysiin waa dulinimo weeyaan anu waxaan oranayaa maqaldama waa ilaahay bilaadan baan nahay waan qaldami karnaa laakiin waxa fiican had qaldantina inaan soo daba qabatida wanaagsan anu waxaan oranayaa gabdhaha walaalahaya haday mid soo hadasho oo martay live-ka lagu jiro ka soo hadasho oo waxay doonto ka dhiibato iyo haday mid intay live soo fadhiisatay halka ka hadashay tira soo gala soo urura soo gala mid dambaalaha ka rifiintan san yeelo soo gala iskugu yeedho waxaan anu oranayaa ta soo fadhiisanaysa iyo ka soo fadhiisanayo iyo ta ka soo hadlaysay inaad ka midoodin oo maadartay umada walaalihiina ee dhibaataysan ee dulumka maarta lagu hayo ee maarta guumaysiga madow oo cadaadinta ku haya in maalin kastaba 1,000 iyo ka badan laga dilayo inaad meel ka soo wada jeesatiin oo xitaa waxba u qabaneen hadaad waxba u qabaneen be inaad hadda ducada u martiin oo Ilaahay u barideen inta isla noolihiin isla degan yihiin inuu Ilaahay maartay dhiig islaan in la daadiyo ma fiicne inuu Ilaahay maartay bal labadaba wada degan oo si markii hore deganayeen u noqdaan inuu Ilaahay inuu barisiin baa la rabaa inta bal ma sameyn kartiin anu waxaan oranayaa hablaha walaalahayo dulmidiid halkaad ka taagteedeen maantana qabiildiid ka taagnaada oo ka wada midoobaan oranayaa garabkana is wada qabsada magaca ciisana waa inaad xoojisiin kala ququb waxba nooma taray waan ku kala dhibanayna ku kala dhamaanaynaa meesha waxaad ku taamila qaadataa amar ku taamila qaat halkii maanta taagantana ku taamila qaat marka saasaan noqonaynaa intaan sidaa noqon ilaahayba nagama dhigee intaad u soo noqotiin ilaahay u soo noqotiin bay khayr qabana waa lagu jiraayo ilaahay waa kana rabadaan baa noo soo galaye ilaahay intaad u noqotiin dib iskugu noqdo taariikhdiina saxan aan odhanaya taariikhdiini oo ciise lahaa saxan odhanaya 6 aqal isku saxa oo wax la isku qaban jiray wax la isku gargaari jiray garab gaashaan bal isku waxa isku la noqdaan odhanaya intaaba nagu soo gumaabinaya insha Allah waana ni ducaynaa bogina burcad ilaahay isku marsho intii dhibaatootay ilaahay dhibaatadana ka saarantii dhimatana Allah u naxariisto maalika umrayna darwad maasantay dhamaan intii dhageysanaysa iyo intii dhageysan doontana dhamaan aadayaasheeda hawada kuwada maqana ay dhageysan doonana salaam qiimiga qaayala ni soo marnaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان ونكس والله صدق هذا سؤال حسن دقيت يا شقايا على وحلا يعني السلام عليكم مرة يسول هذا برنامج كده يا قديسي قد يجيب كنا وحى على عيسى الندو بعد رجع عيسى ورجل وجمال الدبي منه وين وحويا رجع عيسى ما في فيسبوك سوف يصنع ayaan anigu leeyahay shame on you qabyaalad ka sheekeynaya ciise kala qaadaya inaba meel ku qoqobaya
maalinna maalinba qabiil u saaraya maxay ahayday war waxa weeyaan anigu wallaahina waxaan anu u arkaa dad raggan ciise ee qabyaalada ka sheekaynaya ee qabyaalad maxay ahayday caayaya ee qabiilaysiga bilaabay war haddaad u baahan tihiin in la imid anigu waxaan u arkaa dad dadka daawanaya amba followers-ka inay ku badsanayaan war haddaad qabiilkaaga caydo ninka kuu soo gala aduu qabiil caayaya ha u malay inuu nafteexa kuugu soo galayo wuxuu kuugu soo galayaa inaad waxaad qabiilka ciisaha eed u dhalatay aad ku caayaysid inuu ku maqlo uu ku dhegaysto berina adig kugu caayo ayuu usoo galayaa lixdii aqalee ciise ee ahaa ceereeye iyo horoole iyo wardiiq iyo walaaldoon iyo maxay ahayday ilaahay bay amuurta u neginahay uurweyne waan soo sheegay waxaan idhi ceereeye walaaldoon holle wardiiq uurweyne iyo horoole lixdaa aqal iyaa ina deeqa inaynu iskala qaadqaadnana maahi waa inaa anaa ciise madoobe inay inoo dhaafto maahi ragga maxay ahayday sidaas doonaya inay followers ku yeeshaanow war inaad ragga ciisow mididiina uusku jabtay ka kuu soo galay ku dhegaysanaya inuu nastaxa kugu soo galaya kugu dhagaysanayaa u malayin wuxuu rabaa inuu cayda ciisaha kaa dhagaysto berina kugu caayo dadka fikirkaaga waad ka iibin kartaa aragtidaada waad sheegi kartaa adoonan qabiil ciise ana caayin su-aala inaadeer hadalka adaa u dambeeyey gabdhaha waxaa karka ka keenay kuleelka maxaa layidhi waa dheriga waa kuleylka gabdhaha waxaa kuleelka ka keenay waa ragga ciise ee ciisaha kala qaadqaadaya ma qurxoona shame on you weya ragga ciise intay soo fadhiistaan meediyaaga ciisaha kala qaadqaadayayo iyakaa dhibtoo dhan wada iyakaa maxay ahayday inay habluhu caytamaan iyakaa ka keenay hablahana waxaan leeyahay hooyooyin baa tihiine gabadi waa taninki maxay raggooga gubaabisee gubaabada raggiga la ogaada oo cayda iska daaya waa iga waano waa iga dardaaran waxaan hadda maxay ahayday hadalkayga intaa kusoo koob inuuna ila sii taraarixini waxaan kusoo dhaweynayaa xaawaan kusoo dhaweynaya xaawo gamiyaan kusoo dhaweynayaa xaaway inaadeer waxa weeyaan barnaamijkii qabyaaladiid gabagabo sii marayaa adiguna maxaad ku dari lahayd ood kusoo gumaanadi lahayd kusoo dhawo xaawo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبني سلام يا مالك وندويناتي وما تنتعي أدبني سلام يا دمان راديو بربات سيتي سوغاد iyo hablaha martida ah caawada diinaya barnaamijka dhamaan waan wada salaamaya iyo intay dhageysan doontaba aad baan wada salaamaya ma sha Allah tabarakallah rabadaan mubaarak rabadaan baa noo soo galay rabadaan wanaagsan ilaahay rabadaankiisa farxad iyo faana lagu gaarsiiyo dambi dhaaf iyo maqfurana Allah na siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala ilaahay inuu maskaxdeena iyo malaheena iyo muruqina mideeyo meel kasta oo joogno ilaa iyo xiisiya mayd ilaa bulaxaar ilaa naasireed ilaa jabuuti ilaa xeebta ilaa iyo dardhabe waxaan leenahay ilaa dayn iyo dhooyar ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay ku isku muuqof Allah naga dhigo isku aqliya Allah naga dhigo isku mala Allah naga dhigo isku maskaxa Allah naga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa horta turkeen inuu dhaqankii iyo wanaagii uu lahaa iyo xeerkii wanaagsanaa ee aabayaashay nooga tageen ee wanaagsanaa ee aan intaaba lagu dhaqmayay ee Soomaali ugu da'weynayn ee ma sha Allah daarood waxa dhalay oo balacad iyo dhashay majeerteen didshiishe iyo warsangeli saddexdaaba iyada dhashay waxa weeyaan dhaqanka aan dadkaas da'da aan halka daarood ku dhalay ciise waxaa moodaa inuu ugu da'weyn yahay Soomaalida sida marka aad taariikhaha loo eegayo waxa weeyaan ciise martabad iyo sharaf iyo karaamo ku lahaa Soomaalida dhexdeeda iyo adduunka dadweynaha aabayaasheena nooga tageen
tii inaan martabadii iyo sharaftii iyo karaamadii uu ciise lahaa ee lanagu yaqaanay inaan lasoo noqoto baan ilaahay ka baryaynaa inta hadda meediyaayada soo fadhiisatay ee saqajaanka iyo dhibaatada lasoo fadhiisatay iyo qabyaaladii waxaan leenahay dib iskugu noqda dhaqankiina ku noqda waa inaad dad sharaf leh oo karaamo aad ka dhalateen ood ka soo jeediin oo xeer leh oo diin iyo dhaqan iyo kala dambeyn lahaa waa inaad ku noqotaan buugagiini hore inuu meediyaagani dhalan habaabistii inuu niqaadin inuu calooshood la ciyaar ha noqonina dadka qurbaha jooga weliba siiba weliba ragga ah iyo dumar intay doonaanba ha noqdaan waxaan leeyahay walaalahayow ceeb weeyaan ciifada inta meediyaa isku soo fadhiistaan sacaaya anagu manu maqal maanta ka horteedna manu maqal mana jeclin waana ka xunnahay waxaan leenahay tolkayow dib ha la isugu noqdo gabdhahana waxaan odhan lahaa caarayaad baa tihiin gabdhow inaad meediyaa soo fadhiisatiin oo aad ka caysantaan waa ceeb mustaxiil weeyaan gabdho ciise haddaad tihiin waxaan leenahay ha u noqonin arrimahaas sodahaad tihiin hablaad tihiin caruuraad dhasheen gabdho sharaf loo karaamalaad tihiin inaad sharaftiina aad meediyaa ku dhex lumisaan waa laga qurux badan yahay waxaan leenahay haddaad soo fadhiisanaysaanna waa inaad kusoo fadhiisataan wax wanaagsan haddaad faafinaysaan tolkiin midaynaysaan gubaabo siinaysaan dhiiri gelinaysaan iskugu keenaysaan qaraanka iyo sadaqada iyo in ka qayb galaysaan maya eed dadkiina caawiya leedihiin oo ajri xasanaad shaqaysanaysaan maasha allah tabaaraka allah waa loo baahan yahay taas laakiin hadday intaa dhaafto fadeexad iyo fidmad gasho ma qurux badna ilaahayna ma jecla diinteenuna ma jecla subxaana watacaala bil fiican ilaahay waa isaga awooddaas le bil fiican oo barakaysanna waan soo gallay walaalahay waxaan ka baryaynaa bishaana ilaahay inuu khayr iyo barwaaqo noogu dhameeyo arrintaana inay maanta ugu dambayso oona loogu soo noqonin ragga waaweyn ee soo galaya meediyaaga arrimaha ka hadlaya weliba gabdhahooga haddana ku aflagaadaynayana waxaan leenahay war dhaqankaay dhaqan ciise ma aha dhaqankaay dhaqankii tolkeen aabayaasheed nooga tegayna ma aha ciisuhu gabadh uu dharbaaxi jiray hadday eedan xumaato ay afka ku taagtaa laakiin weligii ma caayi jirin dhaqankaasuu lahaa ciise dhaqankii ciise waa inaa lasoo cesho waa inaa waxaas laga waantoogo maan leenahay waxa weeyaan ciisahan uu dhulka weyna galay waxaa ku dhacay systemka xun ayaa dhibaatadan geystay waraabuhu markuu ariga ku dhex dhaco goosgoos uu goosgoostaaba lelo nin iyo qayb ukala markuu ku dhex dhaco nin iyo qaybba u kala yaacaa nafta markaa sidii baa noqoteeni ilaahay waxaan ka baryaynaa waraabahana ilaahay inuu naga qabto khayr qabta ilaha nooga qabto meel kasta uu joogo waraaba intaad wadan ay joogan waa waraabaa wada jooga ilaahay waraabahaana sistemyada ku wada jirana ilaahay inuu naga qabto subxaana watacaala dadkeenana ilaahay inuu isku soo urursho xaqana ilaahay inuu na garansiiyo meel qurana kuwii ka duula allaha naga dhigo dhammaan ummadda islaamka ummadda tolkay ah ummadda soomaaliga ku hadasha waxaan leeyahay ramadaan mubaarak aad baan barbaarta inta soo gaadh raadiogeygana aan u salaamayaa daadiyaha maalika jibriir iyo hablaha ayaga sharafta badan leh caawi jooga ee halkaa barnaamijka isla qaadaa dhigayana waan salaamayaa ramadaan wanaagsan baan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay xaawa in adeer horta ilaahay bay amuurta u nadidahaye barnaamijkii qabyaaladiid uu soo gabagaboobay waxaan kusoo xirayaa barnaamijka nabadiid qabyaaladiid waxaan kusoo xirayaa waxa weeyaan shalay markii maxay ahayday ina iilay lagu kacay ay barbaartu ka bilaabatay maxay ahayday city waad arkaysay dadku marka ay mawqif leeyihiin ay isku xidhan yihiin quwad inta ay leegyihiin waad qiyaasi kartaan dawladdii soomaaliyeed ee deegaanka degaankii soomaalida ee etoobiya waxaa sidaa u gilgilay barbaartii city bay ahayd waa kii markii dambana maxay ahayday sidii uu ku socday ina iilay quwaddaa inakoole awooddaa inakoole inaynu isku maxay ahayday gacmaha iswada qabsano oo wixii aan diidayno inaka oo u midaysan inaan horta wax diidi karno waxna iska dhici karno tii shalay taasaa u markaatiya waxaa layidhi mayd maxaa u dambeeyey kaa la sii siro
waxay ahayd 2 sano baa ka soo wareegtaan jecelahay waqtigii maxay ahayd ay barbaartu 2 sano iyo waxoogaa waqtigii ay barbaartu inay iilay ay ka saartay maxay ahayd dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka saartay horta quwaddaas iyaan leenahay ilaahay quwaddeena ha ina tuso ilaahay quwadda uu ciise leeyahay hadduu ciise midoobo yaa uu dal u wada jeesto quwaddaasaan leenahay ilaahay horta quwaddeena ha ina tuso waxa kale waxa weeyaan inaadan waxaan kuugu darayaa maxay ahayd xaaway waa horta udbalacad baa waxay dhashay 3 nin oo waxay dhashay daarood ah waxa weeyaan sidii aad soo sheegtay adiguba waa majarteenka dhashiisha iyo warka geliga odagii ceeleeyana Puntland buu ku aasan yahay meesha la yiraahdo ay la yiraahdo ay ayuu ku aasan yahay waxa halkaa kaaga mar dhigaysaa inuu ciise halkaa deganaa ayay marag u tahay dad baa waxay yiraahdaan dhulka qaarkii oo gubal ay ka mid tahay ciise ma deganaanay bal ciise xiisiya may ayuu deganaa xiisiya may waxaa ku aasan ciise ku aasan ayla waxaa ku aasan ceeleeyaa ku aasan halkaasuu deganaa ciise marka halkee sidee loo odhan karaa yaa gadaalka gaar baa tii qabyaaladoo dhan baad gadaalka gaar tihiine anaa ciise madoobe inay inooga hooseyso ma qurux badno anaa ciise madoobe inay inooga hooseyso ma qurux badna marka waxaan kusoo gabagabeynayaa kelmadda u dambeysa waxaan aan leeyahay rabadaan baa soo galaya wixii dhacay uu dhacay caanadaa tima dabadood la qabay hal la iswada cafiyo bishaa rabadaan darteeda la isku cafiyo bisha rabadaan darteed maxay ahayday wixii hore ee dhacay badda ha lagu daro inaad dibay dabadayso inuunu ciise isku caayin ayaan inaga codsanaynaa oon rabnaa oon maxay usoo geed fadhiisanay oon iskugu nimidna dumar haddaan nahay annaka wayna dhibaysaa ciise caaya wayna dhibaysaa rag ciise caaya wayna dhibaysaa gabdho iyo kuna maxay caytamaya wayna dhibaysaa waxay maxay dadkaygii baa tiid garbahaygii baa tiid walaalahayaa tiid dhiigaygii baa tiid deecaankaygii baa tiid inaad sacaydaan ood isku soo maxay ahayd Facebook fadhiisataan aad bay noo dhibaysaa waxaan inaga baryaynaa oon inaga codsanaynaa inaad wixii dhacay uu dhacay dibay dabadeed inaa horta la isku caayo waa kow bisha rabadaanay soo galaysa fadligeegana in la isku cafiyo bisha rabadaanay bilanaysa ilaah khayrkeeda hana siiyo nin kastaba meeshuu jooga ilaaha ku kayro intii dhimatay ee amba dagaal inagaga dhimatay amba se xanuun ku dhimatay amba si kaleba u dhimatayna ilaahay ha u naxariisto Soomaali maxamedna waxaan leeyahay bogeeda ilaahay buu calays ku mariyo Soomaali meel kastay joogto maanta waxa dhici doonto maxaa haddii ay Soomaali siday iska bedeli weydo qolada doonta ha ahaato hadday Soomaali siday iska bedeli weydo waa la ina dooni doonaa waxaa jira maxay ahayd qoomiyado adduunka korkiisa ka suulay ayaa jira qoomiyad Libyaan la oran jirtay baa jirta adduunka korkiisa way ka suushay innaka rasaafan iyo adduunka korkiisa uga suulaynaa haddaan isdaba qaban weyno adduunka korkiisa waa ka suulaynaa laanno waxa weeyaan maxay ahayd Soomaali bar maanta kurbay joogaan dadka kurbaha joogayna yaa in baa maxay ku biiray ajaanibyo kale in baa meelo kala maray inta wadankii joogtay haddii qabyaalada isku qabsato Itoobiya baa yaa wadanka qabsanaysaa Zainab iyo hadalkaana ka dhawaatay waana wax faaqti u dhici doona hadday Soomaali soo isku dhaayeen Itoobiya iyo Kenyaatiga maxay ahayd ayaa in kala qaybsan doona qaybtan maxay ahayd north kale waxa qaadan doonta Itoobiya qaybta maxay ahayd south kale waxa qaadan doonta Kenya marka anigu Soomaalinimo ka hadlayana kama reebayo wadanadan Itoobiya iyo Djibouti iyo kama reebayo jeli dhulka ay Soomaali degan tahay oo dhan laba qaybood baa loo qaybin doonaa north kale waxa qaadan doonta Itoobiya south kale waxa qaadan doonta Kenya waana siday ugu talagalay adduunka dadka maxay ka taliya ee Yurubiyaanku iyo ambasa Westernku ay ugu talagaleen weeyaan laanno Soomaaliya waa waddan 90% dad muslimiin ku nool muslimina adduunka lagama rabo
meeshuu mas-uulka ka jiraba waa la baabiinaya labadaa dawladood oo labaduba kristan yihiin ayaa gacanta lagaaga ridi dhaqankaaga isbedeli oo afkaaga isbedeli oo dadnimadaaga isbedeli oo dumarka soomaaliyeed bay wada guursanayaan oo dareeriyo maxaa yeelay gudhugadaayo waxaanad garanayn bay dhaldhalayaan halkaasuu markaa ku sugnayaysaa soomaalinimadii markaa aan isdaba qabano soomaaliyeed ciisow adiguna sidaan isku dhaan gabagabadii weeyaan kelmadaas waa kelmadii iigu dambeysay waxaan leeyahay maxaa yeele ummadda iga dhegaysanaysaa radio city soo gaad waa anoo maalika jibriira barnaamijkii qabyaaladii maxay ahayde qabyaaladiina halkaasi ku dhammaaday waxaan leeyahay waa isku soo noqodkeena dambe iyo oo xiisale waxaan nabadgelya niiga tegayaa dhammaantiin iyo rabadaan wanaagsan baan leeyahay dhammaantiin rabadaankiisana ilaahay si san iyo khayr badan ay nagu gaarsiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Yeah.